مرحبا أصدقائي soo dhawaada channelkayga Muna Corner. Maanta insha Allah videoga wuxuu ku saabsan yahay 5 quraac oo kala duwan oo healthy ah oo waqti kugu qaadanaynin diyaarsigeeda. Haddaad tahay qof rabo miisaanka inuu iska rido ama miisaankiisa ilaalshado videoga ila fiirso. Quraacda ugu horeysa waxaa waaye smoothie-gan wuxuu ka kooban yahay faakaho iyo caano. faakahada ugu horeysa horta waxay tahay banjar baa lagu dhahaa moos horta midka labaadna waxaa waaye banjarka inta Soomaali waxaa lagu dhahaa beetroot oo malaynaya faakahadan faakaha aad u fiican waaye. midda kale waxaa ku daraynaa wax la dhaho flaxseed ama bedel kataankan waxaa fiican yahay caloosha faa'iido badan uu leeyahay. sidoo kale caanana xoogaa yar oo caanaha sidaa rabtid adiga inuu qafiif ahaado ama culays ahaado. waxaa usoo noqonaynaa faakahadan waxay u fiican tahay dadka dhiig-yarida qaba ama ironka ku yar. dhadhankeeda xoogaa aad dadaan jeclaynaa jira laakiin markaa ku dartid xoogaa moosa iyo caana iyo ama sokor haddaad damacdid laakiin anaka healthy version baa ka rabnaa markaa kuma darayno moos ama kuma darayno sokor keliya waxaa ku daraynaa qofkii u baahdo malab laakiin ani malabba kuma darin maasha Allah mooskaba macaan ugu fiicnaa. sidaa u jeediin faakahada waa jarjarayaa waa yaryaraynayaa xoogaa. midda kale waxaa rabaa inaan idinkaga sheekeeyo flaxseedka ama bedelka kataanka wuxuu u fiican yahay caloosha omega 3 buu leeyahay. midda kale fiber ama alyaaf dadka caloosha xoogaa calooshooda adag tahay oo musqusha gelin aad buu u fiican yahay. midda kalena wuxuu ku fiican yahay markaa ku darsatid cabitaan ama xoogaa boorash haddaa ku darsatid waxaad dareemaysaa waad ku dhergaysaa. sidoo kale dadku waxay isticmaalaan buduur ashiya ma arkin inta xamar laakiin bedelka kataankaana arkay. marka smoothiga ayu nooc smoothie aad samaysanaysid haddaa ku dartid bedelka kataanka ama buduur ashiyada faa'iido badan bay leedahay waana xoogaa waad ku dhergaysaa quraac fiican waad ku dhergaysid ma dareemaysid keliya inaa cabitaan biyo aad cabtay. marka saa u jeedtiin waxaa ku shubaynaa blenderka mooskaa ku daraynaa. mooska haddaa ku dartid mooska xoogaa markuu bisil yahay wuxuu ku fiican yahay macaan yar uu yeelanayaa markuu xoogaa dhinacyo kama madow yahay ku darsatid ama cabitaan ama boorash ma dareemaysid sokor inaa u baahan tahay. marka ku darno mooska iyo haddaa rabtid faakaha kale waa ku darsan kartaa laakiin aniga mooska iyo waxaa ii yaalay beetrootka. marka ayaga iyo caano iyo flaxseedka isku shiidaya cabitaan maasha Allah oo aad u macaan bay noqonaysaa. quraacda labaad waxaa waaye loos peanut butter iyo rooti.
rootigan wuxuu ka samaysan yahay qamadi marka insha allah wax dhiba kuma jiro. rootiga markuu ka samaysan yahay burka cad buu maxaa ahayd xoogaa yacni ka faa'iido yar yahay rootiga caadiga, rootiga qamadiga laga sameeyey. marka lowskana maxaa ahaado aad u fiican yahay, maxaa jira wuxuu leeyahay brotiin buu leeyahay. wixii brotiin lehna subaxii haddii lagu quraacdo sida ukunta iyo rootiga dharag maxaa ahayd waxaad dareemaysaa inaad shabac يعني gaajo kuma qabanayso. laakiin markii la isticmaalayo lama badsado wax kasta oo yani cunto healthy xataa ha ahaato. peanut butterka waa ujeediin xoogaa yar aa isku dayaya inaa marsado, maxaa jira waxay yani calorigeeda aad buu maxaad u sareeyaa. marka labadaas markaa marsado, labadaas maxaa ahaado gabalo rootiya waxaa yeelayaa xoogaa moosa korka ka saaranaya. dadaa jira xoogaa malab weliba korka uga shubta, laakiin aniga mooska igu filan. aada uga helaa quraacdan, waa kaasaa quraacdii labaad, aada u fududahay insha allah. quraacda ku xigta waxaa waaye healthy pancake. pancake aada u macaan yahay subaxii lagu quraacdo, laakiin markii lagu sameeyo burka cad iyo sokor kaliya lagu qaso xoogaa yani healthy ma noqonayo. marka anaka waxaa sameynaynaa insha allah nooc healthy ah oo aada u macaan. waxyaabaha laga sameynayo pancake-gan waxaa waaye xoogaa yaroo baking powder iyo hal xabo ukuna. sidoo kale waxaa lagu darayaa hal xabo moos ah. waxaa bur looga dhigayaa boorash oo yani shuufaanka boorash looga dhigayaa bur iyo xoogaa yaro caano oo qandaca. marka intaasaa la isku geynayaa blenderka leeba lagu ridayaa xooga yani intaan yarta aad samaysay 3 xabo ilaa 4 xabo camal ay samaynaysaa. blenderka le lagu ridayaa qalaadka dhib badanba ma laha yani marka xoogaa waxyaabaha dhan isku geysid ukunta iyo mooska iyo boorashka xoogaa yar waxaa ku daraysaa qorfa. waa ilaaba inaad sheego xoogaa yar qorfaha lagu daraa, caraf iyo dhadhan macaana way leedahay qorfaha. qofkii jecelna yani maxaa ahaado miisaan inuu iska dejiyo waxay ku fiican tahay qorfaha. dhiiga sokorta dhiiga maxaa ahaado aada u nadaamisaa, carafna waa u yeeshaa, ukunta shiirkeedana way dishaa. inkastoo mooska markii lagu daro ma dareemeysid yani ukun shiirkeeda. marka isku shiidnay alaabta waxaa ku shubaynaa maxaa ahaada baaquli yar. waa dabooleynaa xoogaa muddo ilaa 15 daqiiqo camal. boorashka xoogaa haddadan wuu jiran yahay, laakiin markii xoogaa la daboolo wuu adkaanayaa. midda kalena baking powderka xoogaa markii lagu dubaayo pancake siduu xoogaa kor u kaco. birtaawada dabka saaranaya markuu diyaar garoobo. birtaawada xoogaa markii ayadoo kulul korka waxaa ka marinaya kaliya calal yaroo saliid leh, xoogaa yaroo saliid baa marinaya. markii kulaato xabadii ugu horeysa ku shubaya. waa ujeediin uu adkaaday xoogaa. waxaad ku dareemeysaa inuu bislaaday markuu indho yeesho. halkaasaa indhihii soo yeeshay sida pancake caadiga oo kale, laakiin tartiib baa loo gedinhayaa, maxaa jira dheh ma laha bur. markaa saas u gedisid waad arkaysaa maasha allah gudud suu u noqday. pancake caadiga wax kama baryahayo maasha allah.
ilaa muddo 1 daqiiqo camal. Dabkana maxaa aad looma dheeraynayo. labada dhinac markuu ka wada gaduuto ciyuhu iska bislaanaya, bisayl badan uma baahna. haddana xabadii labaad aan ku shubayaa. sidoo kale markay xoogaa indho soo yeelato oo soo bislaato aan gedinhayaa. marka waa kaasaa pancake-geeni intii halkii xabo moos iyo halkii xabo ukun waxay samaysay 4 xabo camal. waxaad yeelaysaa anaka sokor kumaana darin, xoogaa yaroo malab ah korka uga shubanaysaa. faakaha haddaa haysatidna maxay ahayd korkaa ka saaranaysaa. pancake aad u macaan waaye, waa idinkula talinaa inaad baroobaysiin. waxaa waaye boorash si fududa u sameynaynaa maanta. waxaa haysanaa halkan xoogaa yaroo boorash oo 1 koob camal ah, iyo xoogaa yaroo badar kataan ah, iyo bakeeri caana ama half bakeeri caana oo qandac aad u kulul, xoogaa yaroo timira iyo xoogaa yaroo loosa. waxaad damcday inaad korka uga saaratid. waxaa yeelaynaa boorashka maba la karinaayo. intii yareeda waxaa ku shubayaa baaquli. caanaha karkaraaya aa korka uga shubayaa. marka caanaha oo korka uga shubo aad u karkarayaan, waxaa ku darayaa badar kataanka oo 1 qaado camal ama intaad doontid. waa isku walaaqaya. marka isku walaaqo waxaa yeelayaa waa ku daboolayaa ilaa muddo 5 daqiiqo camal ama 10 daqiiqo. wax karisa kaaga baano. marka ku dartid caanahana aad uga badin. caanahan waxaa jeclahay rasiin, laakiin dadkii jecel maxay ahaado xoogaa biyo qof walbaba dooqiisa waa, laakiin xoogaa rasiin waan jeclahay. markaa ku daboolo xoogaa muddo 5 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo. waa kaasaa asagoo maasha Allah aad u adag. boorashka saasoo camal inuu adkaada jeclahay, maxaa jirta markuu saasoo camal yahay xoogaa waxaa ku dareemaysaa dharag markuu biyo yahay ahaan. korka waxaa uga shubtay xoogaa loos ah haystay iyo xoogaa timira. wixii faakaha arabti waa ku darsan kartaa, adiga dooqaaga waaye. waa ku walaaqaya maasha Allah. waa kaasaa waxaa ku daranayaa half qaada oo malab ah sidii xoogaa dhadhan macaan igu yeesho. quraacdan idinkagama sheekayn karo runtii, maasha Allah quraac aad u fiican waaye. waa lagu dhergayaa caloosha maasha Allah. yani quraaci caloosha jeceshahay waaye. fiber baa meeshan ka buuxa ama alyaaf. waxaa ku jira boorashka alyaaf leh iyo badar kataanka alyaaf leh, sidoo kale maxaa ahaado timirta iyo looska. marka quraac aad u fiican waaye, idinkula talinayaa baroobeeya. quraacda ugu dambeysa waxaa waaye quraac iska caadi oo normal ah. intii aan soo sameyn oo dhan macaan bay ahaayeen, laakiin quraacda waa quraac dhanaan ah. waxaa haysanaa inta xoogaa qudaara iyo maxaa ahaada rootigii oo qamadiga laga sameeyey. waxaa ku samaysanaya 1 xabo ukuna aa shiilanayaa. qofkii jecel ukunta wuu karsan karaa, laakiin ani waxaa jecelahay badanaa inaan shiilo. marka halkaas xabo ukuna xoogaa yaroo saliida ah birtaawada u saaranaya. sidii caadiga loo shiili jirin baa u shiilayaa. qudaarta korkan baa ka saarayaa xoogaa. aad uguma maxaa ahaado uguma burburinayo, uguma jijibinayo. korkan baa saas uga saaranayaa. xoogaa yaroo yaanya iyo xoogaa yaroo barbarooni ah. sidoo kale xoogaa qajaara ah haystay. way fiican tahay aan salaatada subaxii lagu darsado quraacda. ukuntii markii ay bislaatay rootigan baa dusha uga shubanayaa. aaday u kulushahay ukunta. marka xoogaa yar markii maxaa ahayd kuleylka ka oo ah qajaarka korka ka saaraya. maxaa jira qajaarku uu qabow yahay.
rooti aad maasha allah oo faa'iido iyo fitamiin iyo qudaar iyo ukun iyo wax kasta leh waaye maasha allah quraac aad u fiican waaye aad lagu dhergahayo waa kaas asxaabta quraacdii ugu dambeysay waxaa idin rajaynayaa fiidowgan inaad maxay ahayd daawasho wacan iyo maxay ahayd faa'iido fikradooyin quraac cusub aad ka faa'iidaysateen sidoo kale maxay ahayd wajbooyin cusub oo maxay ahayd ku darsatiin nidaamkiina dadkiina musiiba miisaanka inay iska dejiyaan quraacahan kala duwan isku tijaabi marka isoo sheega commentiga inta aad u jeclaateen ama aad ooga hesheen لا تنسوا أصدقائي أن لايك يا شير يا كومنت يا سبسكرايب لها channelka haddaad ka hesheen videoga maanta oo jeceshihiin videoyaal saas camala inaan soo dhigo bye bye